Somaliland. Somaliland. شغقرا. شغقرا. أما طفل. مودنا يا لي مروي. رمضان كريم. مالي وأنا أحسن فرحة له. ولا يوم إلى هاي مركو كونك أبوري وحول لي خليفة أمام الله بني آدم قرآن كيسو شيء محاب بني آدم لوغني إلى نقضان ملاحظة أما خليفة كونك أما أدوك وحيوانك كلا أيديه بني آدم وحا لوغني إلى نقضان مامك أما خليفة أدوك وعقلك عقلك أي إيريه حيوان نورها كلا أوردن إلهي أوراي عقلك اللي wuxuu keenay in lagu saaro mas'uuliyad ilaahayna goorno kala xisaabtamo oo ah shar iyo khayr wanaag iyo xumaan kolba waxa tagto koonka waxa ku noolaha kala dhan lama xisaabiyo aakhiro waayo ilaahay caqliga ma sii marka caqliga uu leeyahay qofba intuu isticmaalo ummadiba inta uu isticmaasho wanaaga iyo kartida ay bay horumartaa mid waliba intay caqligeeda disho ee fariisiso ee ka shaqeeyay markana way hadaa maalintii waa 4 saacadood markaad 8 saacadood qaad u fadhido ee caafimaadkaaga disho waqtigaaga disho maskaxdaadina walaac geliso habeenkiina warwar aan jirin baqa adduunka aan jirin aad gasho aroortiina wax walba aad ka shaqeysaa maxaa la qaban karayaa waxa la heli maayo maxaa la hayaa waa la inawaalayaa عقلك dadka galaan meel ma gaaraan maantana dadkeena mushkiladaas ku badan waa inuu ka saaraa taakadib shaqo qaran waa xarunta aynu doonayno inuu caqliga Soomaaliland soo maro oo uu ka shaqeeyo horumariyo shaqo qaran waxaynu ka rabnaa dadka oo loo marinayaa inay noqdaan qaar if iyo aakhiraba wax taransada shaqo qaran waxaynu dadka u soo marinaynaa in ay helaan waddo qof walba muwaadin heba uu waajibka ku leeyahay qaranka uu ka helo isagana qaranku ka helo xuquuqda laga rabo ujeedooyinkeenu shaqo qaran oo aasaasay haddaan laba ka soo qaado waxa weeye marka hore tababar maskaxeed iyo jireed ninkii la oran jiray tima cabde waxyaalo badan buu ka geliyey laakiin shaqo qaran iyo tababarka maanta marteen uu ka geliyey uu tilmaamay waana intusee tima cabde fardaha ayuu aad u yaqaano gabayaashiisa dhowr meelood uu fardaha kolba si ugu soo qabtay cajiiba mar dowladnimada maamulka faraska ku tilmaamay marna carabka ku tilmaamay ka kooban soo qoranayna faraska markii uu tababarayay uu doonayay inuu halkuu doonayo mara maalinta dabaaldega iyo maalinta dagaalka iyo maalinta faanka aroos loogu dabaaldega wax rawanay intaba sida loo tababaro iyo sida loo tababaro bini'aadam waa sidoo wuxuu yiri tima cad ha argaagtamo neef ha argaagtamo ومركب قف هراء ما أو حبض فرس حرق ما له قبض مركب وديدية وبدودية وفرسانية وجبجبينية ومركب وراك على حاجة وبحاجة ورثة قف ما أنت ليش توقف شيء حتى أنا المال والمرتان بيا جريني إذا كنت جامعيا أو تعرف واحد قف هيدا بس كذا حاجة رايدة ها أرجع تمام نف عيش يهارو هاي يقول ريد نال ذي عيش بيك سلام عيش يهارو ها ما دي أفراد عقد بيتها عقد إذا يا نال ذي عيش ديك إرجع جاي لبسه شافتك نال لبسه وين هذيك ها ما دي أفراد ما ترى ما دي كريست ما الشكل بدري بقولتي ها ما دي أفراد إرجع اسمه شريرو ها عطا تسلات ورنت ميدان مريض سلامتي ميار مط ويا مكان مرتين ميار سلامتي عدانين سلامتي ميار عدانين
ما أنت أمريسين ومضوا عيد مدير ما يجي إن أنت هم لا بد بس مركب فلوس خسران بده ومضوا وياه ها ما دي أفراره إركب هذا شريره هذا تسراد وحيكون جدا أنت سنوين إنه نورشة وأوضع عدالة واحد قبلها وشدوا هو حلوتها بركة قفوا إنه تابرتون بصيحة هي شركة هي دل جعلك صدق قبل الصوت هذا يا مانت ودردارك كذا وكهذا مروحها أنك الآن مرها أنت بدل كرم سنة أحمد محمد شبر قوط شبر بالنا نوحها متعلم ومعلم هانتري مركز دمرة هالأبور نقضي أو حيصي أو تبي أو قاهرة بسوسه بس الله وحرسته شباب ينسى مخبرين هاس مسلمين ما هي صدق حساب بريه وعام مروحهم من هذا وضن كي جونا أحسن إنا أنكواره ما هي إنا تهريبه ما هي إنا كتب شعريسته ما هي إنا كتب طيوه وضن كي جونا أحسن إنا أنكواره ورشده وسميون وحول بعض ما أيام وعد فقار وأنا كهر قريه نفس يتورى معلم بقامر برسوا تلفت بالحرية ولد شبروح لي ضيع حيل على الكروم أو كذوبة هي شبروح لي قل هالدالي كان كاجي حلي وجديه جورا حتى سووا جورا أدنى ولي قريبا ولي قد قدوته وما تكن تاريخ ضيع حالة تجي أدنى ولي مش قاضي الريه بري حكيم تقولي أنا بريجي كم يجي أنا جيري قدوته عارس ولا محول عارس ولا تدور تجي محول إذا كذا له هداي أو كوا صوص له هداي أو كوا يجي مركز هداي تابع له هداي هدانا هيا كيلا نروب هدانا استعمار كوان له ما حنقية هالدورات هدانا كيلا نر هيا أوران هدانا دولك هيجان بانوه أنا هوي أنا دولك سووا هيجا هاره أنا هوي دولك تري هيس هيا لله isagu waxa iga haray anigu aan hooyin bukri dhulku hadda bay anigu hadaan u dhimanin qof kasto muwaadin taasoo mara waxa la yiraahdaa danta moogibay danta qaranka ku dhisanta askarada baratay qaranka sababaya in yar la ka bilaabo ninka dad jecel ee dal raaci u farbadna boqol sano laga joogay imika nin dalkiisa u horay naftiisa oo dantiisa ka tagay oo u jihaaday oo 30 sano xabad fooda ku hayay oo inta isticmaalka la dagaalamay ayay gabadhiisa isqabsaday xaaskiisii saamar alni markuu yaado ugu noqonaya gabadhii loo dhisay waa bish markuu habeen hamalaha jooga ma habeen kale arqaab oo weerar waa difaac waa sahan waa jihaad saanti waa yaabta waa ismaaciil cali mire waa ismaaciil mire ismaaciil cali mire macallin waa إسماعيل مرمكا سلامتي صفاد وحبذا لو جرو قبرت لو يشتكوا كنت حارنته أو سيد كود ولا قبره واحد أربعة إسماعيل لو سوى هو يفرس كيلو شرب بفوشي ده صادوا ويرها سوى حاول واحد ترى عضو بمال قال هذا بدي حاسكولي ويمدوا حارنته كنقضي شلبي ويمدوا حابس كموسى قال حارنته كنقضي ده ترى ما تبغى سوى مرة صدق في الأرض مقرأ لو شروك الدعوة مركو كوري قالوا كبير بحي أي عارة يقرار يوحي دانتاه شيء صادي عارس درما يبرتها تشوف حدا واحد يسلو جوجل مركو كبير وريب بيدي وبيه كبري أيوني أرجع سوتاي إسماعيل صوابه وبح برجع التلفون مثل قادر أوشتي لا توصل ترى سوق كبير كشون أنت بيش كتفه أنا هو صوته البدل أفرق بس لهذا ساعة سويت حاجة بس أسمع على ثواب حبيبتي halka wax ku yaala oo sheekadaba guriga lagu dhigi jiray ninkii soo gaaray xidhiidh barigeeyay halkaas uu yiri faaduma falaadkayga falaadkayga ayaa fiira ka bariyay fadahan wareega sidii farow ugaaleede guntiga ma furfura habeenkii foora soo dhacay fakaloolka iyo gaarka badan feejigaan ahay فرنجان إلى ليلة فوس كسر بحيه فرق جدي لنا كلام فرح ساراي
xeerada fandhaalaysan iyo faakhir dhabankeeda farna aniga oo saarin baan fuuli loo shane ha furfurin dermada layga waa inaan fadhiistaayo foolkii ustaadkaan ka helay faa'iido khayr faataxa markii imanaha farax dhaqaaqaayaha furfurin dermada layga waa inaan fadhiistaayo bal ka warrama jaahadka 100 sano ninka jooga caynka ahaa ee jaamicad geli ee iskuul loo isticmaal kala dagaalamayay wixii soo faras ahaa markaa danta qaranka ninka doonaya inuu dhiso dantiisa iyo halowda waxay noo dardaaranaa muwaadinku wuxuu yidhi sharaf iyo shaqe dantaada ta qaranka doorti markaasuu qaranka dhisi karaynaayo dal jacaylka maanta inta badan suugaan baynu ku cabirayno dal jacaylka dadka oo dhan nagala mid ah nimanka ay nala fadhiyaan maanta adduunka lacagtu haysta indhaha yaryarne 200 sano u dambeeyey dhowrkii boqol u dambeeyey nimanka adduunka ugu faqrisan bay ahaayeen way xidheen waxay ka maarmeen hebel oo nacaawi hay-aday noo keen kaalaya nuxnoo dhisa ihiday xidheen 100 sano ay xidhaayeen dagaalkii labaad adduunka ugu dhacay jabaankaa mar gebigoodaba rogay mar waxa lagu rogay bahalayaan daroogo wixii oo dhan bay ka soo gudbeen markii dambe kacaankoodii baa 10 goor isdaba rogay sida u xidhnaayeen ee loo lahaa way baktiyayaan maanta adduunkooda buu ka yaabay waayo way isku tashadeen waana is aamineen waana shaqaysteen nin walba waa kuwa maanta ka adkaaday ninkii shaqaystuba wax qabtay is aamineen midooda inta faraaqsano mid ah oo qof waxba qaban maayo reerna waxba qaban maayo qofna waxba qaban maayo heesaha adduunkooda may wada akhriyo ee dal kasta laga qaatay afrika burti wax kamid ah heesta gabayga uu sameeyey ninka carbeed Tuunis la yiraahdo Abaqaasi Bashaabi markuu dadkiisa la hadlayay bay dadka ugu cajaayib badan ee barigii hore waa loo dhigi jiray halkan gabayaasha caynkaas kasooda loo badankoodi markuu hadlayo waxa kamid ahaa dhulku wax weydiiyey dhulka ayuu yidhi waqaalat liya al-ardu lama sa'alt dhulkii waa igu yidhi markii aan wax weydiiyey wuxuu weydiiyey yaa ummi hal takrahiina albashar bini aadmiga miyaad dhibsataa maxay ugu jawaabtay يا ما من رب واحد أبارك في الناس أهل الدموع ومن يسرد ركوب الخضر وألعن من لا يمشي الزمان ويقنع بالعيش الحجر واكرها أيام كلام دم يروح واحد وحن أدعي باركيا ذلك هنكله سكر صون wax qabanaya khatarta iyo waxaas way u adeegaan aqoon wax walba jiray dad qabtaan jecelahay waxaan caaya oo nacdara oo dhaliila ka ogol ka aan waqtiga la tagtay man la yimaashi zaman ka aan waqtiga ba eegin saacadu maxay tagtaa oo aan oran aan waqtiga la baratamin aan waxba qabanay waqtiga iska lumiya ku qanca inuu ku noolaado nolosha dhagaxa shal hadar dulliga ninka ku noolaado ogolaada inuu qashka dhex fadhiyo ayaa maxwalaabay maxuu gabaygaasi mar kale haddii aad doonayso inaad buuraha fuusho dib kasta hal ahaatee waa inaanad daalka aqoonin waman yuriidu sucuuda aljibaal dusha sare buurta ninka doonaya inuu koraa yaciishu abada dahri bitacabi himalaya haddaad fuulayso ama nolosha inaad meersanaad gaadhayso waa gaboobaye da' baan ahay malihida waa inaad maalin walba dadaashaa tusaale nool baad idin hor fadhida waa adna aadan kuwii la daada aha ma dhaqaaqaan maalin walbana way cararaysaa waayo weli buurtay sii fuulaysaa marka ku dheeraan mayno wax badan baa laga yidhi horumarinta waa iga xusuusin waxaynu maanta halkaa isugu nimid aynu doonaya inaan ka wada hadalno aan doonaya inaan idiin sheega waxaana idinku soo qaatay dadka hore iyo waxa ay ka yidhaahdeen inaynu higsano halka adduunka u sarraysa maxaa inoo diiday inaynu dalkeenana maamulno nin waliba isagaana soo doono markaynu tacabno aynu qurxaysane hala ictiraafo waxa lagugu ictiraafo keen shaqayso
edab yeelo dadka la shaqee qofka ku baahdo من دورسني اعترافيسا هيئة إنه كاره هيئة أساسا وحكي سويا نعاوية من قعدت السنة اعترافيسا هو من الحول هيدي ما ينادول هيسن أنت هيسن مين هيسن مين قرة هيسن مين هاي عيد النسيم مين بدي بريبر هاي مين مرغ هاي مين عقل هاي محاينا خيري واقف قفك يقوس قيس كانوا كقوان هاي أين وحينا قريس وآخره أين الحوك يني عقل ينسوي شق قرن وحكر روائنا الحر السلام من هذا قرنها يهرجل هذا مركز وحنوش شعرها وأنا وجهي وقرأها قفت أقوات وليه هاي دلك وقفة إيديه سكس طبع ها كفكره maxaan dalkayga u qabtaa aan ka fikirin aniga maxaa la siinay dhalinyarada waxaan soo jeedinayaa in ay noqdaan kuwa ka feejigan oo aan dhageysan kuwa niyad jabay ama jahli wahayo ee ku tiraaba inagu reebel baan waxay nooba ogola maxaynu qaban karnaa wacid bayna taageertay xageenu wax ka aadnamo waxba leena soo mariyay macid baa inoo maqan ee halkaa yuruna isagii baa ku dhabeelay arrinta ku dhabeelaysa waayo cid kale wax ka sugaya inay daan ku adeeg u dhigin oo markaad hawl gashaan haddii hawsha gashaan aan kala dufin jirin haddaad hawl qabato oo wax isku daydo oo aad waxa kari wada ay ka xumaato waxbaad baratay way faa'iido baritaan qaldamay hadday ku guuleysatana way ku hirgish marka ha ku niyad jabin haddii maalinta xal laga qaado ku dhacdo waxaad baratay baritaan saxaysaa dhalinyarada shaqo qaranaya kuwa kale waxaan u sheegaya haddii aabayaashiin iyo awayaashiin dalka xoreeyeen markii hore isticmaalkii ka heliyeen markii dambena dib u xoreeyeen oo ay nabadii keeneen oo ay dowladnimada aasaaska u dhigana ma yegleeleen dhalinyarada imika waxaa la rabaa inay dalka dhisaan oo kor u qaadaan iyagay sugaysaa dhalinyarada waxaan u sheegayaa dhulka inagu malihi intayna nooli malihi waa ka tegaynaa dhulkan waxaa leh dadka dhalan doona boqolaalka sano soo socda maalin dhaweyto statementkii mee waxaa ii sheegay inay tiradoodu imika 4 milyan 800 tahay korarka sanadkiina 3.3 yahay 10 sano ka bacdina noqono 5 milyan ka badan boqolaalka sano soo socda 100 milyan noqonayno dadka dhulkan ku dhalanaya iyaga waxay nagu xusi doonaan oo inagu ducayn doonaan ama inagu haaraami doonaan hadda waxaanu qabanno bal fiirsada dalka Greeka Turkiga Masar qaar badan oo kale dadku waxay ka helaan dakhli $1 bilyan waxyaabihii awooweeshoodu dhiseen 10 sano hortood aruurteena 100 ama 500 sano ka bacdi bal maxay nagu xus doontaa isweydiinay maqaadkaana cunu jiray si qabiil aan ahay waxaynu doonaynaa inaynu taa ka fikirno oo dadkeena dambe aynu u fikirno ugu dambayntii waxaan leeyahay maanta oo 26 May tahay 2019 waxaan cod dheer cid walba ugu sheegaya inay shaqo qaran maanta u dareereen iyagoo guutooyin xoog la ah sida ay dalkooda hore ugu marin lahaayeen ay mutadawacnimo ugu shaqayn lahaayeen gobolada oo dhan cadawguna ka noxo Soomaaliya ku farxo waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijku waa saa laydin sheegay sanadkan bilowgu ahaa way nagu yaraa waqtigu gabagabayna waa ahay kuwa dambeynta way ka dheeraan doonaan tababar sidaan ka xoog sameynaya ugu dambeyntii dhalinyarada shaqada waxaan ogeysiinayaa inaad tihiin dhammaantiin kayd ciidanka qaranka ah oo dalku markuu u baahdo u yaranayo ilaa aad ka gaarayso 65 jir kayd baad u tahay dalkaaga hadday dhibaato timaado hadday abaar dhacaan hadday daad yimaado hadday dab dhaco haddii cadow soo weeraro daataada waxa haya wasaaradda gaashaandhigga marka lagu dhawaaqana ciidanku baad damay tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi